allaha u naxariistay 6 qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay deegaanka Kalagsharka oo ka tirsan degmada Qoyta ee gobolka Togdheer. dhimashada 6 qof iyo dhaawaca 5 qof oo saarnaa gaari nooca loo yaqaan Noohada ayaa la soo gaarsiiyay cusbitaalka weyn ee magaalada Burco sida uu warbaahinta u xaqiijiyay Dr. Cabdi Soodi agaasimaha cusbitaalka weyn ee magaalada Burco. ilaahay ha u naxariisto wax maanta baar 12 duhurnimo uu ka dhacay shil gaari meel u dhaxaysa magaalada Galooley iyo Karasharka dhexdooda. shilka waxa cusbitaalka Burco la soo gaarsiiyay 6 qof oo meyd ah kuwaas oo kala ah 4 dumar ah iyo 2 nin oo labada nin mid yahay wiil yar yahay iyo 5 dhaawac oo gaariga waxa saarnaa 11 qof baa saarnaa 5 dhaawac hal qof mooyee 4 kale dhaawacooda uu fududaa qaarna imka cusbitaalka ka baxeen qaarna waa loo shaqeynayaa. marka ugu horeyn waxaanu ka taxsiideynaa qaraabadii iyo eheladii ay ka dhinteen 6 qof ee ku geeriyooday shilka gaari iyo qaranka Soomaaliland ka geeriyoodeen dadkaas oo safar u socday in la raajicuun baan leenahay. ariga dhacayna waxa gaari Nooha taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Togdheer oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gaarigani ka yimi magaalada Hargeysa. gaariga ku dhacay ka tuulada Kalagsharka dhinaca Galooley ka xigta ilaahay waxa uga baryaynaa intii dhimatay in naxariistiisa ka waraabiyo inta dhaawacana in ilaahay caafiyo oo ka kiciyo. gaarigu dhinaca galbeedku ka yimid waxaa soo jeedaysa la sheegayso dhinaca Burco ayuu soo jeeday. Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.